في wanaagsan khiyaarta nala socotay dilkiinba meel kasta oo mid noqon doona madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump ayaa amar siiyay wasaaradda dagaalka ee wadankaasi inay tallaabo ka qaadaan wadanka la yiraahdo Nigeria oo kamid ah wadamada ugu dadka badan qaaradda Afrika waxa uu ku eedeeyay in tacadiyo xoogan wadankaasi uu ku hayo dadka laga tirada badan yahay ee Masiixiyiinta ku nool wadankaasi jawaab ayuu bixiyay wadanka Nigeria hadaba maxay noqon doontaa jawaabtaasi barnaamijka ayaan ku faaqidi doonaa wadanka Turkigana waxa uu bilaabay soo saarista diyaarado casri ah oo kuwa dagaalka iyagoo durbaba ay soo jeedeen suuqa hubka ee qaaradda Yurub wadanka Spain ayaa lacaga balaayin euro ah ku iibsanaya diyaaradahaasi iyadoo tani ay ka dhigan tahay Turkiga inuu ku biirayo saaxadda wadamada ugu horumarsan xagga wax soo saarka qalabka militariga diyaaradan iyo waliba saameynta ay leedahay iyo waliba waxay ka dhigan tahay ayaan barnaamijka ku faaqidi doonaa khiyaarta inala socotay dawladda qadarna waxay markii ugu horeysay gargaar bini aadanimo oo degdeg ah gaarsiisay dadkii wadanka Suudaan ee dhibaatadu ay ka soo gaartay dagaalka ay wadaan kooxda dacmo sariic oo kamid ah kuwa ugu xoogan ee gacan saarka la leh wadanka Imaaraadka kuwaasi oo dhibaatooyin xoogan ka geystay magaalada Al-Fashir mustaqbalka gobolka bariga dhexe iyo waliba Israa'iil oo ku horeeya wadanka Turkiga uu hogaamiyo Rajab Tayyip Erdogan waxa uu noqonayaa mid saameyntiisa suuqyada hubka ee galbeedku ay noqonayso kuwa aad u sii kacaya diyaaradda uu soo saaray oo lagu magacaabo Kharijaad ayaa noqotay mid ugu saameynta badan xilligan marka la fiiriyo suuqyada hubka ee qaaradda Yurub wadanka Spain ayaa iibsanaya 45 diyaaradood oo kamid ah kuwa wax soo saarka militariga ee wadanka Turkiga uu sameeyay taas oo indhaha ku soo jeedinaysa wadankaasi wadamo fara badan waxna Spain ay ku dhawaaqday tan inay qayb ka tahay in ciidamadeeda iyo duuliyaasheeda dagaalku ay doonayaan inay qayb ka noqdaan in ay faham ka qaataan isbedelada tiknoolajiyada iyo waliba ciidamada ee adduunka uu samaynayo waxana Erdogan markii talada wadankaasi uu la wareegay uu bilaabay in uu kobciyo dhinaca dhaqaalaha cilmiga iyo waliba wax soo saarka militariga Turkiga oo kamid ahaa wadamada ugu ballaaran ee wax soo saarka militariga iibsan jiray ayaa isaga hadda noqonaya kan ugu ballaaran ee iibinaya marka loo fiiriyo wadamada ku bahaysan gaashaanbuurta NATO oo ah isbahaysi militari oo ay ku midoobeen wadamada dhaca waqooyiga badda Atlantikada sida ay qorayaan qaar kamid ah wargeysyada waaweyn Spain ayaa noqotay dalkii ugu horeeyay oo Yurub ah ee iibsada diyaaradaha dagaalka iyo tababarka ee Turkiga uu soo saaray taas oo calaamad u ah baalire gool istiraatiiji ah oo weyn oo u soo hoyata Ankara iyo warshadaha difaaca ee wadankaasi oo si xawli ah u sameynaya horumar ballaaran wasaaradda difaaca Spain ayaa sheegtay in Madrid ay heshiis la gashay shirkadda Turkish Aerospace Industry ee loo yaqaan TAI si ay u iibsato 45 diyaaradood oo nooca Kharijaad ah kuwaasi oo ah diyaarado tababar oo horumarsan iyo kuwa dagaal oo awood u leh inay qaadaan bartilmaameedyo muhiim ah qiimaha guud ee heshiiska diyaaradahan ayaa lagu sheegay 3.12 bilyan oo euro taas oo u dhiganta 3.6 bilyan oo dollarka Mareykanka iyadoo la filayo in la gaarsiiyo diyaaradaha wadanka Spain sanadka marka uu yahay 2028 waxaana ay si buuxda uga mid noqon doonaan adeegga ciidamada hawada ee wadankaasi Spain sanadka marka uu yahay 2029 iyo 2030 sida ku cad heshiiska labada dal ay gaareen heshiiska ayaa qayb ka ah barnaamijka Spain ee lagu casriyeynayo tababarka duuliyaasha dagaalka waxaana lagu bedelayaa diyaaradaha dooga ah ee F5 oo muddo 10 sano ah ay adeegsanayeen waxaa sidoo kale la qorsheynayaa in shirkadaha Isbaanishka ah ee Airbus Indra iyo sidoo kale shirkad kale ay qayb ka noqon doonaan rakibitaanka iyo horumarinta qalabka gudaha ee diyaaradda marka la keeno gudaha wadanka Spain dhinaca kale dawladda Turkiga ayaa heshiiskan ku tilmaantay tallaabo taariikhi ah maadaama uu yahay wadankii ugu horeeya oo ka tirsan isbahaysiga NATO wadankan Spain ee iibsada diyaaradaha wadankaasi ay soo saaraan
qabiirada militariga ayaa rumaysan in heshiiskan uu muujinayo isbeddelka awoodda warshadaha difaaca ee waddanka Turkiga taas oo hadda ka guurtay xaaladii hore ee ahayd iibsada hub waa Turkiga isla markaana iminka uu ka noqonayo wadamada soo saarista hubka iyo dhoofinta tiknoolajiyada dagaalka casriga qaybta ka ah diyaaradda Harijaad oo markii ugu horeysay la doonayay sanadkii 2023 ayaa noqonaysa diyaarad laba kursi leh oo isku dhafan oo tababar ah iyo kuwa howlgal fudud oo dagaalka loogu talagalay mararka qaarna waa diyaarado ka sareeya guuxooda sida ku cad diiwaanka Turkiga ay baahiyeen sanadkii hore markii Turkidu ay soo bandhigeen arrintan falanqeeyaasha difaaca ayaa ku tilmaamaya heshiiska in uu yahay fursad cusub oo Turkiga u furaysa suuqyada Yurub maadaama uu arrintan xoojinayso xiriirka uu la leeyahay xulufada uu qaybta ka yahay isbahaysiga NATO wadamo kale ayaa horey u diidanaa dhaqdhaqaaqyada Turkiga uu sameynaya xagga awoodda iyo militariga Turkiga waayadii ugu dambeysay waxa uu soo bandhigay diyaarado drone ah kuwa ay ka mid tahay diyaaradan cusub ee Harijaad iyo waliba maraakiib diyaaradaha xambaara oo hadda dhismaheeda uu wado taasi oo muujinaysa awoodda waddankaasi inay aad cirka isugu sii shareerayso madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump waxa uu si adag weerar afka ugu qaaday waddanka Nigeria waxa uu ku tilmaamay waddankaasi in lagu dhibaateynayo dadka haysta diinta Masiixiyadda uu ku tilmaamay in ay yihiin kuwa dirayal Nigeria oo kamid ah wadamada ugu tirada badan xagga dadka qaaradda Afrika ayaa markaa waxa ay dareemaysaa culays uga imaanaya dhinaca Mareykanka laakiin hadalka Trump waxa uu ahaa in wasaaradda dagaalka iyo Pentagonka dalka Mareykanku ay qaadaan tallaabo military oo laga qaadayo waddankaasi Nigeria taas oo muujinaysa in markasta Mareykanku uu duqeyn karo ama tallaabooyin uu ka qaadi karo dowladdaasi Nigeria iyo Abuja hase ahaatee waddanka Nigeria oo arrintan war ka soo saaray iyagoo ka jawaabaya waxa ay ku tilmaameen hadalka Trump inuu yahay kuwa aan la qaadan karin oo ka fog caqliga caadiga hase ahaatee aysan jirin dowladdaasi in shacabkeeda ay kala fadisho oo guud ahaanba muwaadiniinta waddanka Nigeria ay siman yihiin maalmihii ugu dambeeyay kooxaha hubaysan ee argagixisada ayaa weerar ku qaadaya qaybo kala duwan oo kamid ah waddankaasi iyagoo bartilmaameedsanaya dadkaan haysan diinta Islaamka waxaana Nigeria ay kamid tahay wadamada dhibanaha u noqday tacadiyada argagixiso ee ay ka shaqeynayaan kooxaha argagixiso ee waddankaasi dhibaateynaya dowladda Qatarna waxay gargaar bini aadanimo gaarsiisay dadka ku nool magaalada Al-Fashir iyo qaybo kamid ah waddanka Suudaan halkaasi oo kooxaha dacmo sariic ay ka geysteen xasuuq bini aadanimo kee ugu xumaa warar soo baxaya waxay tilmaamayaan dadka la dilay in ay kamid ahaayeen 300 oo haween ah oo ay qudha ka jireen kooxaha Abu Lu'lu oo hogaaminaya ee ka tirsan dacmo sariic hase ahaatee Maxamed Xamdi Dagalo oo ah ninka hogaamiyo ama xamiidii lagu magacaabay ee hogaamiye kooxda waxa uu leeyahay waxaan sameynaynaa baaritaano dowladda Qatar ayaa dirtay gargaar bini aadanimo iyo agab degdeg ah oo loogu talagalay magaalada Daba ee ku taala waqooyiga dalka Suudaan si loo caawiyo kumanaan qof oo ka barakacay magaalada Al-Fashir ee caasimadda gobolka waqooyiga Darfur halkaasi oo lagu dilay baa la yiri dagaalo ay ka dhaceen dad fara badan oo rayid ah wasiirka muraha dibadda dalka Qatar ayaa sheegay in gargaarka degdega ah uu qayb ka yahay ballanqaadka joogtada ah ee Qatar ee ku aadan taageerada shacabka Suudaan gaar ahaan xilliga adag ee dagaalka waddankaasi uu ku jiro oo la soo warinayo raashin la'aan cunno yari hoy la'aan iyo waliba adeegyada aasaasiga dadka oo meesha ka baxay war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda Qatar ayaa lagu yiri gargaarku waxa uu muujinayaa dowrka firfircoon ee Qatar ay ku leedahay dejinta xiisadaha bini aadanimo iyo dhisidda isfahanka iyo isku duubni caalami ah oo lagu taageerayo dadka dhiban gargaarka loo diray dalkaasi waxa kamid ah 3,000 oo la sheegay in ay yihiin raashin degdeg ah 100,000 waxa la yiri 160,650 tendooyin loogu talagalay in hoy loo isticmaalo
iyo qalab kale oo muhiim ah oo lagu talagalay barakacayaasha. waa maalgelin iyo fulinta mashruuc ay iska kaashanayaan sanduuqa Qatar ee horumarinta iyo waliba hay-adda Qatar Charity iyagoo la qorsheeyay baa la yiri in gargaarka uu gaaro in ka badan 50,000 oo qof. sidoo kalena waxaa la dhisayaa xero cusub oo loogu magac daray Qatar al-Khayr si ay uga adeegto baa la yiri barakacayaasha. gargaarka Qatar ayaa yimid xilli 26 bishan magaalada Al-Fashir ciidamada Suudaan ay ka geysteen tacadiyo xooggan oo ka dhana xuquuqda aadanaha.